السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا صحابتي إذا شرفت بدن مالك استوأد أدونك كجوبتا ومحايد الله يا خير يا بركة يا نور الدماني بإذن الله الرحمن صونقد وناكسن إذن كرينا العافمات قبطان أيان الله الرحمن كالرجينا يا بإذن الله وحان إذن الله يا وانيقو فاضمة ورسن جنال كداواني سانا واسيروك شاق جنال ما شاء الله تبارك الله أنا أصحابتي دب إيجا صبرتي وحن لي هاي سودا وهذا قاع مفرن يا قلب فرن كسودا وهذا بعد الصلاة الله الرحمن وحن كبرينا عافي إيه عافمات إلهي إذن كيس كذب وحن لي هاي رنتي وحينون هاي أمت صوماليات هدينون هاينا نموال بابا وحقوبها هاي دولة وكدر صدو يدل ودب انتو ugu noqdo oo ku raaxaysto oo maanta kaamirooyinkan aan rabno inaan caalamkan ku duubno waxaan rabnaa dalkeena inaan dib intaan ugu noqono aan ku soo duubano oo aan ku soo faano oo aan dhahno waa dalkeeni Soomaaliya ma sha Allah tabarakallah ilaahay dal qurux badan oo ina siiyay oo aad u wanaagsan oo aan runtii marnaba aanan islahayn anigu وكا قرح بدن هاي مانتا قربها أنجونا بل وكا قرح بدن هو كون أكسين هو كفي عيه سنة من سنة ما شاء الله انتا كبعدي دل كانوا وحو كجرا دورشة سياسات وحو كجرا دورشة ضدبان وحو كجرا دورشة عن أهين عد يقف عن أهين مركيسات هاي إلا يراهدا waxaa la soo dooranayaa madaxweyne waxaa la soo dooranayaa qof ina hogaamiyo baan la iimaanaynaa marka la dhaho tacab badan baa dadka ka soo mara runtii markay wadamadan hadda aan joogno ee qurbaha waxaad arkaysaa boorar meel ku dhagan oo qof sawirkiisa ku dhagan yahay waxaad arkaysaa qof la taageersan yahay oo la wato waxaad arkaysaa qof la nacsan yahay oo mucaarad lagu leeyahay lagu wada yahay marka dadku bini aadankana mucaarad iyo muxaafad intaba kama dhamaato laakiin maxaa loo baahan yahay in lagaga gudbo doorasho in lagaga gudbo qofkan intaasuu soo hayay xilkiisii waa dhamaaday doorashaan laakiin aadaynaa oo xilkii doorasho looga wareejinayaa taasi waa muhiim mar walbaba inay dhagahayagu maqlaan dalkeena Soomaaliya aan ka maqalno dhulkeeni aan ka maqalno aan ku faano aan dhahno waa wadankeeni oo doorasho maanta galayo ama wadankeeni oo madaxweyne cusub maanta yeelanayo aad baan u jeclaan lahayn dhamaanteen waad aragtay madaxweyne cusub markii la saaro dadka dhan farxad baa intay wada qaado dabaaldeg baa la sameeyaa xalfada la qabtaa calanka la lulaa meel kasto ayaa la istaagaa oo loo hambaliyeeyo calankaas buluuga ah quruxda badan ee mar walbaba dusheena saaran sababtay tahay inaga leh ummad Soomaali baa leh kaasoo aan la kala lahayn oo maamul goboleed ahayn oo maamul xaafadeed ahayn oo maxaan ku iraahdaa maamul qabiil aan ahayn maamul qoys aan ahayn laakiin maamul qaran ah kaasoo qaran matalayo kaas ayaan inaga dhan dusha markaa soo wada saaranaynaa oo qofkii madaxweyne noqday oo loo doortay u dabaaldegaynaa laakiin maxaan iri farmaajayaadii baan dooda noogu fuuray xukuuma damahanta xaga haldaacaya kuwaadu حقي قرم رايو بدهل كدربانو تومي سياسة الدول عذواها يانو دهداقين دلها القرب سيئيوه ظلم روحي جيعل دلها القرب سيئيوه ظلم روحي جيعل شعبك يا دهر سيهيا متكي رابان codkooda yaa duuba oo caalamkee oo deero
allahowna dohoro midkeehan ko dagelahayn farmaajo hadduu yahayna rabbeyow dib noogu celi hadduu yahay hadduu yahay ee ilaahu dib noogu soo celi asaga keliya maaha laakiin waa madax walba oo imaato oo wanaagsan ilaahu noo dooro haddii laga maarmi waayo ee asaga uu dib ugu soo noqdana allahaba ha noogu soo celiyo waa hadday shacabka rabaan maxaa ka dhacay maanta madaxtooyada dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee barakaysan maxaa ka dhacay waxa ka dhacayo waa doorasho laakiin doorashadu maxay tahay doorasho qabiil ba maya doorasho siyaasadeed ba maya waa doorasho qaranka mid uu u baahnaa ah tan ka socoto maxaa dhacay laakiin maxaa la isugu goodinayaa maxay odayaashu u dhawaaqayaan iyaga oo af qabiil ku hadlayo runtii waxaan dhihi lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta madaxtooyadii lagu haysto wuxuu oga kici lahaa kursigaasna ay tahay doorasho wixii lagu bedeli lahaana ay tahay doorasho wixii uu ku sii deen lahaana ay tahay doorasho iyo qofkii loo doortay xilkaas oo uu gacanta ka saari lahaa oo uu ku wareejin lahaa laakiin iska dhig xilkan cid kuma rabta ee halkaa ka bax Soomaaliya macquul ma tahay aan isweydiine macquul ma tahay gabadha guriga iska leh oo degane la soo guursado la qabo gurigaas waxay oga bixi kartaa haddaysan ilmo haysanin markii la furo صح laakiin kursiganu nin imaanin oon cid loo soo galbinin madaxtooyadii oo dadkii degi lahaa madaxtooyada aan la keenin oo doorashadii dhicin maxamed cabdullaahi farmaajo ka bax iyo weerar baan kugu qaadaynaa iyo madaxtooyadii baan sawirkaaga ka fujinaynaa iyo maanta ciidamadii uu isku haleynayay oo ooda ka qaaday dadkii maxamed siyaad barre allah u naxariistay markii la soo bixinayay waxaan u malaynayaa in halka lagu dhamaado lagu hoobtay maalin hore oo hadda dhowr bilood ka horana waan ka hadlay runtii habeen anoo halkaa sariir kursigayga iska fadhiyo ayaan ku fakeray in ay dhacdo tan maxamed siyaad barre berigii lagu dhamaaday maantana farmaajo dadka ha nagu dhamaynin intaasaan taagnaa laakiin waxaan leeyahay farmaajo garbaan u arkaayo waxaan u arkaa inuu yahay madaxweynihii dalka uu u baahan yahay qof bedelo oo xilka uu u dhiibo laakiin dhig xilko iska bax caalamka berri muxuu inoo arkayaa dadan jirin bay inoo arkayaan dawladaha shisheeye maxay inoo arkayaan xil iska dhigo iska bax Trump baa ku bixi lahaa Trump baa ku tagi lahaa oo nacayn badan loo muujinayay ilaa doorasho intuu galay xilkiisii laga qaaday oo uu wareejiyay aqalkii caddaa war aqalkan cad ee Muqdisho ku yaalo ee magaalo madaxda Soomaaliya ku yaalo ma afnin leeyahay buu qofka kursiga ugu soo fariistaa ogana baxayo oga kacaa mise doorasho xar iyo xalaal ah baa inta lagu tartamo lagu kala baxaa armu idinku soo noqdaa haddaad leedihiin xitaa anigu waxaan qabaa awoodiina intaad isticmaashaan oo adeegsataan in inta ugu badan aad idinku ka qaadataan maxaan ku yiraahdaaye baarlamaanka inta ugu badan mucaaradkow inaad idinku gadataan anigu waan qabaa haddaad isagu diidaysaan inuu idinku soo noqdo laakiin dalkii in qalalaaso iyo buuq la geliyo masaakiinta idinku dhaqdhaqana aadan hoos u fiirinin ee wixii shalay Puntland ka dhacay maanta laga qoomamaynayo
بري مركي حمر كقرحدنا مقومة ما دنو شيغيسان مس دلك الله كلا قبوجيه يا ددك الله كلا قبوجيه انو كو هاينينا او شاشدها انو تاغنانينا بالله عليكم waxaanu samayno noo sheega mashaashadahan ka soo qaylinaa markay magaaladu qaraxdo aaway culumadii aaway cuqaashi aaway waxgaradkii aaway dadkii deganka lahaa aaway dadkii u talinayay dadka maanta taagane musharixiinta ama mucaarad ahow ama muxaafid ahow sawdadka ma dambeeyaan odayaal meeshu ma joogaan malay meel la iska soo xeexaydaa adoo xeexaydan meel iska soo galaa adoo maxaan ku yiraahdaa kacsan oo xamaasadaysan meel la iska soo galaa qoriga keebkiisa maun ii dhiiba macnaha aad ku dagaalamaysan miyaadan dib uga fakarin oo u fahmin waxay tahay mise dhimashada iyo dhiigga iyo dagaalku waa waxay dadka ku naaxaan odayaashan wada caloolaha waaweyn meesha soo fadhiyo ee isaga wiilkiisii aan ku dagaalamaynin ee asaga gabadhiisii aan asay ku qaadaynin ee asaga cunugiisa uu soo fogeysto meel fog uu geeyay ma meel lagu dagaalamaa shalay maxaanu ka arkaynay boosaaso ka dhacayay in reero masaakiin ah ilmahoodii ku fariistay hubab waaweyn oo lagu baabi'iyay maanta muqdisho oo gudaheedii lagu dagaalamo oo madaxtooyadii dhexdeedii la isku qabsado maxay noqon kartaa mise hubka waan tuuray ikhtiyaarkii wuxuu ku dhaca taagantihiin maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa loo diidan yahay inuu tartanka galo annagaa leh dhul la leeyahay haddana dhul Soomaaliyeed wada ah annagaa leh dhul la leeyahay haddana la rabo in laba qabiil intay ku tartamaan ama madaxweyne ku xigeen mid uu ka noqdo dhulka markuu hal beela ay degan tahay hal beela madaxweynaha ka noqoto madaxweyne ku xigeenna ka noqoto ummad Soomaaliyeed laakiin markii la dhaho Soomaali qabiil walbo waa inay ka soo gashaa waa inay degan tahay haddana xamar waxaan u arkaa anigu dadka oo dhanba inay isugu tageen in magaalo la jecel yahay ay tahay oo guryo laga wada dhistay in magaalo barakaysan ay tahay oo saqiir iyo kabiir ba halkaas la wada calmaday faqiir iyo taajir ba in la wada degan yahay in maanta aad dadkiini marka ku soo noqotaan aad baa looga fiican yahay war Itoobiya maad ku dayataan oo iyaduba maamul goboleed gooni ah u leh oo shalay Abiy Ahmed kii la jeclaa maanta markuu doorashada ku soo baxay la wato war dadku maxay shay ka xisaabtamayaan annaga Soomaaliya maxay inaga xisaabsiin waayay qalbiga iyo muqfarada maxay ina tiray iyadoo nin walba qabiil uu yahay haddana dadku waxay fiirsadaan dawladnimaday fiirsadaan dagaankayga iyo aan deganahay aniga oo aan ka soo jeedo waxay qurux badnaanaysaa markay xamar dhisan tahay oo dawlad leedahay oo dawlad ka taagan tahay yaan anigu qurux badnaanaya markaasaan anigu dadka ku dhex jirayaa laakiin mar ay xamar gubato ama meel lamida ay dagaal uu ka dhaco waxa weeyaan naafaad noqonaysaa qof curyaana tahay oo liito on dhaqaaqi karin oo xubnihiisii barmaqan yihiin qof xubnihiisii barmaqan yahayna ma dhaqaaqi karo xamarna taasay ka dhignaanaysaa waxaan la yaabanahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markuu khilaaf dhex yimaado mucaaradka maxay ra'iisul wasaaraha garabka u saaraan anigu waa waxaan la yaabanahay madax horaad soo ahayd madaxweynaad soo ahayd taytalkii ugu sareeyaad soo qabatay ilaahay ha ku sharfo waxaad noo ahayd madaxweyne waan ku ogsoonahay madaxaad noo saaran tahay
maanta se waxaan kaa rabnaa inaad dhahdid dalka doorashaha aado halka ha u jihaysto dalka ha la wada qabto oo meel saxan ha la wada gaarsiiyo taasaanu maanta filaynaa laakiin inta hub la isu soo qaato in la yiraahdo askariga dhaqaaqa waa aniga kan shaqeeyo waa aniga kan taagan waa aniga adigana ku jiri maysid madaxtooyada waa laga saaraya madaxtooyada ma guri nin leeyahayba ma aha baarlamaanka dalka aan joogno mucaaradka badan muxaafidka yar saasay tahayna dagaal ma ridaan rabsho ma kiciyaan dhibaato ma sameeyaan laakiin waxa qaldan bay toosiyaan waxbay saxaan dalkooda nacayb uma qabaan ay ku dudumiyaan nacayb ay dagaal ku sameeyaan ma qabaan laakiin waxay jecel yihiin inay horay u socdaan kursigana mar nin mucaarada uu soo fariisto oo madaxweyne uu ka noqdo safarkan hadday heli waayaan safarka dambe fiiriyaan kan hadday heli waayaan kan kale fiiriyaan ma aha rajadooda rajo baaba'do ma aha rajadooda rajo dhamaato waa rajo ay han ka sii qaadaan Soomaalida laakiin nin markii la wada amaano oo la yiraahdo ninkaas waa fiican yahay oo musuqmaasuq iyo xumaan iyo qabyaalad intaba waa ka fog yahay waxay jecel yihiin in loo caayo amaanta waxay u diidaan qofka meesha saaran xala yaab leh ummadda Soomaaliyeed meeshay u socdaan iyo halkay gaari doonaan ad baanu la yaabanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaga iska kaaya xigo isxaal og ayaga meel isla degan ayaga wax isla cunay oo wax isla qaybsaday ayaga laba mas'uul ayaga maanta noo ah ayagaanu fiirsanaynaa ra'iisul wasaaraha hadalkiisa qiimuu noo leeyahay madaxweynaha hadalkiisana qiimuu noo leeyahay haddana ayagu aanu qiimaynina annagu qiimo yeelan mayno shisheeyaha xitaa naga ashashayo oo naga wiswisayo waxaan idinkaga tegayaa ummadda Soomaaliyeed farmaajo markii la doortay sacabtun badan baa jiray hadda uu taagan yahayna aad ba loogu sacabtumayaa walow nacayb badan loo qaaday nacaybka loo qaadayna waxba lagaga qaadi maayee waqtigiisu ku tagayaa doorashada inoo wada farmaajana ha soo ceshanina inta ugu badanna qaata idinku oo soo saarta baarlamaan idinku idin doorto idin matalo farmaajana xagga iska dhiga laakiin qaxa ina gelinina oo maanta madaxtooyadii xabad ha ka ridina oo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo dadkaada qaraabada la tihiin wiilashiinimaba joogaan oo gabdhihiinima joogaane dadkaada qaraabada la tihiin oo isku dhiigga iyo isku dhacaanka tihiin oo isku abtirsanaysaan ha qaxinina bilaa calaykum ha qaxinina qax meeshan looma baahna calankanna dool kuma imaane dalka iskale rag baa dhiigooda dhididkooda uu u baxay rag baa dhimashada dharaarta runtii ku tagay rag baa ku dhaartay baluugley inay soo dhiciyaan waxaan idin leeyahay oo idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ad baan runtii oga naxay maanta waxa ka socda dalka Soomaaliya salaamullah